Mehtaab oo ka soo hadlaya galbeedka Bengal ee India ma xalaal baa in kaniisad ama macbad loo bedelo masjid haddii goobtaas muslimiintu xoog military ku qabsadaan. Isla su'aashana kale oo ina soo weydiiyey Muniir oo jooga London, waa maxay aragtidaada ku aadan arrintan madaxweyne Erdogan madaxweynaha Turkiga inuu u bedelayo Hagia Sophia oo ahayd meel museum ah inuu masjid u bedelayo. Walaalaheyn laba su'aalood ay ina soo weydiiyeen. Su'aasha horena waxay ahayd islaamka dhexdiisa ma bannaan tahay oo ma xalaal baa in meel kaniisad ah ama meel macbad ah ama meel kale dadku cibaadaystaan in loo bedelo masjid haddii goobtaas ama wadankaas muslimiintu ay qabsadaan waliba xoog military ay ku qabsadaan. Su'aashan jawaabteedu markaa waa haa, waayo waxaa jira axaadiis badan oo sheegaya haddii muslimiintu ay goob qabsadaan waliba dagaal ku qabsadaan inay u bedeli karayaan kaniisadaha halkaas ku yaala inay masaajid u bedeli karayaan. Laakiin haddii goobaha lagu cibaadaystaan ee kaniisadaha iyo macbadada ahi haddii dadka aan muslimka ahayn ee goobaha iska lehi ay muslimiinta heshiis kula jiraan oo dadka aan muslimka ahayni aqbalaan in muslimiintu ay amarka wadankaas lahaadaan oo ay maamulaan, ama haddii muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayni haddii inta dagaal isku soo qaadaan oo dadka muslimka aan ahayni ay isdhiibaan ayna aqbalaan inay wadanka muslimiinta ama dowladda muslimiinta ay ku hoos noolaadaan. Arrintaas haddii ay dhacdo dadka noocan oo kale ah ee muslimka ahayn waxaa loo yaqaanaa dhimmi. Marka dadkaan muslimiinta ahayn ee dhimmiga ah kuwaasoo mas-uuliyadooda ay qaadeen dowladda muslimka ahi waliba dowladda muslimka ay u damaanad qaado in nafahooda iyo guryahoodaba ay u ilaalinayso, kuwaasoo kale ayaa la ogol yahay inaan laga taabanin meelaha iyo kaniisadaha ay ku cibaadaystaan. Marka haddii dadka aan muslimka ahayni ay muslimiinta kale heshiis la galaan, dowladda muslimka ay heshiis la galaan, amaba marka dagaalka la isku soo qaado ay isdhiibaan, labada qolo lama ogola in kaniisadahooda laga qaado oo masaajid loo bedelo. waliba dadkan oo kale muslimiintu waxay u damaanad qaadayaan inay xataa nafahooda ilaalinayaan iyaga oo ka qaadayo lacag jizye ah ama lacag canshuura oo nafahooda iyo guryahooda loogu ilaalinayo. Laakiin iyagana xataa shuruudaha ku xiran oo looma ogola inay kaniisado cusub ay dhistaan iyo in kaniisadoodii hore ay sii ballaariyaan. kaliya waxaa loo ogol yahay kuwii ay hore u lahaan jireen inay ku cibaadaystaan oo ay haystaan. Laakiin haddii muslimiintu ay wadan kale oon muslim ahayn inta uu dagaal dhex maro awood military ay ku qabsadaan oo ay ka xoog bataan, markaasoo kale muslimiinta waxaa loo ogol yahay in kaniisadahaas ay qabsadeen ay xooga ku qabsadeen inay bedelaan oo ay masaajid u bedelaan. haddaan su'aasha labaad u imaado oo ah waa maxay aragtidaada ku aadan arrintan cusub ee madaxweyne Erdogan uu Hagia Sophia uu u bedelayo masjidka. waayo maanta waxaan ognahay in maxkamadda Turkigu ay go'aan soo saartay in Hagia Sophia masjid loo bedelo, Erdogan uu qalinka ku duubay. markaa bal hadda aan idin siiyo taariikh yar oo kooban oo ku saabsan Hagia Sophia si bal dadka aan ka wareynin taariikhda Hagia Sophia ay wax uga ogaadaan. marka horeysa waxaad ogaataan in dhismahan Hagia Sophia uu yahay dhismo jiray ilaa 1500 sano. markii u horeysana waxaa dhisay boqorkii la oran jiray Jasleen I ama Jaslinkii koobaad, waxaana la dhisay taariikhdu markii ay mareysay 537 CE ama Common Era, ama taariikhda maanta 2020 ka maraysa markii ay 537 mareysay. boqorkaana dhowr sano ay ku qaadatay inuu dhiso, waxayna waqtigaas kaniisadu ahaan jirtay Greegii hore ee Orthodox-ka ahaa. kaniisadnimadana ama kaniisadna waxay ahayd qarniyo kala duwan oo badan. markii la soo gaadhay 1204 oo ku beegan Crusaderskii afraad ama taariikhdu markii ay mareysay Crusaderskii afraad, Hagia Sophia oo ahayd kaniisadii Orthodox-ka ayaa waxay u bedeleen Roman Catholic Church ama kaniisad Catholic ah oo Romaanku iska leeyihiin. markii hore Orthodox bay ahayd waxayna u bedeleen Catholic ay Romaanku iska leeyihiin waxay ahayd ilaa 1261. waa ku dhawaad dhowr iyo 50 sano. marka u fiirso qarniyo ku dhow 667 sano ama 667 sano waxay ahayd Orthodox ay Greegu leeyihiin. intaas kadib haddana 750 sano ayaa waxay ahayd kaniisad Roman Catholic ah. marka 667 sano waxay ahayd Orthodox, 750 sano waxay ahayd Catholic. haddana mar saddexaad markii Kristankii Byzantinianka ahaa ay awood yeesheen ay meeshii qabsadeen ayaa waxay mar saddexaad ku soo celiyeen Orthodox-kii ay ahaan jirtay. sidaasna waxay ahayd ilaa dowladdii Cusmaaniyadu ay iyaguna awood yeesheen ay meeshii qabsadeen oo ku beegneed waqtigii uu Sultaan Maxamed Faatix oo isna meeshii xoog ku qabsaday markii taariikhdu mareysay 1453. markaas ayaa kaniisadiina loo bedelay masjid. marka u fiirso laga soo bilaabo 537 ilaa 1453 oo ah ku dhawaad 900 sano ayaa waxay ahayd marra kaniisad Orthodox ah marra kaniisad Catholic ah. waxayna ahaan jirtay kaniisadda adduunka ugu weyn, taasoo ahayd kaniisadda ugu weyn dhisme ahaan markay noqoto. kaniisadda adduunka ugu weyn